عروت اللي دوني بريت ولا لا تلالها دي الله يرحمه وسجال بلود إلا أي سجال سنة فضلا كان إسكاشن تعيشها يبري بالعام يشن تعيشه كحكته أقل والب ولا تجيه مال ولا أو كستو مقادة بورة ما ولا تجيه هدي اللي نيم ويا نص شيء بليس أنا كأننا شغالي هالك شيء يشان أنا كأننا وحوي مركز كان بيننا وحنو سميننا ما دام talaalkii joogtada ahaa ee xanaanooyinka laga bixinayo dadku soo dooran waayeen inaanu ku xoojino marka waxaan waalidiinta ka codsanayna maadaama berito ay talaalka ka bilaamay buraman oo ka bilaamay berito 7 subaxnimo 5 cashan oo soconayo waxa weeyaan waxa hooyo kasta laga codsanayo aabba kasta laga codsanayo kuna ilma daadooda u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sano inay geeyaan 5 casho talaalka ilmaha u dhameystiraan waxaanu ka codsanaynaa degmada Boorama in loo kaco oo la isku wacyi geliyo oo la isku abaabulo oo la soo sheego qofka habsaamay si uu talaalka uga qayb qaato jadeecadu maxay kala keentaa indhalaan way keentaa moogtay indhalaan bay keentaa hadeedan ogeyn waxa kale ku jira talaalkan jadeecada dawooyinka indhalaanta ka badbaadinaya maxay loogu darayaa talaalka haddaba maanta waxa la yiri talaalkaasi awlaadda ayuu badbaadinaya cudurkaana waa ka nabadgelinaya shariicada islaamku maxay ka qabtaa waa inaan qaadanay ka qabtaa inaan cudurkaasi dhammaanteen awlaadda ka talaalo ka wasaaradahan oo ah wasaaradda ugu nugul ee una baahan in talaalkan loo sameeyo wasaaradii waxbarashada oo ubadkuna ku jiraan waxaan wasaaradda isla qaadanay in ay iyakuna hayaan dawadii annaguna ubadkaan hayno ku jira gacmo furan ku soo dhaweyno oo talaalkaas siiyaan in dadka la wargeliyo in berri oo sabtiya oo bishuna ay 10 tahay in degmada Boorama laga qaban doono hadii Ilaahay yiraahdo ololaha jadeecada ee laga talaalayo caruurta da'doodu ay u dhaxayso 9 bilood ilaa 9 sano qof walba mas'uuliyad baa ka saaran Ilaahay nimcada ugu badan uu bixiyo ama nimcada ugu khayrka badan uu bixiyo waa ubadka kii Ilaahay siiya hadaba waxa waajib ka saaran ee waxay tahay inuu ilmahan waajibkii ka saarnaa uu fidiyo oo daryeel u sameeyo oo waxbaro oo meel walba gaarsiiyo in talaalkani talaaladii hore ka duwan yahay oo dad xirfad lihi doorkan ay gacanta ku hayaan anaguna garab taaganahay kulka leeyni leeyahay awlaadiini wixii anfacayay baan wax u wadnaa oo soo dhaweyno oo bahda caafimaadka in ku garab sinna loo baahay xanuunka inaad ka hortagtaana inaad marka dambe daaweyntiisa aad ku riiqato inaad ka hortagtaa muhiim fariintan ni dareena maanta waxa weey inaynu qaadanno fariinta inoo wadaan bahda caafimaadkiina waana mid inaan facaysa